السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذن أهانتينا ميل والبقات جوكتنا أدونك وحن إذن لا يسود دواده هناجه المامنة شيرتا كومنتيا سبسكرايبك انت وحينو يهين ديري قلين إن شاء الله هدي أدهرو نولا جوكتو باتكم هاتسانتا لجوغاga هدي أدهد نوغو حسبتا نحن كلنا هناجه المامن لاقا شيرتا كومنتيا سبسكرايبك maanta waxaa idin wadaa another video kalo xiiso badan hadaba yaa lagaaga sheekeen een qomid ka sheekeeya insha Allah maanta waxaan idin wadaa qiso aad xanuun badan leh marka aniga party idin kaga dhigi doonaa maanta waxaan idin soo gudbin doonaa partyga koowaad haduu inoo idmaan partiyada kalente insha Allah isku soo daba xijin doonaa waxaan idin soo galin doonaa maalin walba oo Sabti ah insha Allah hadaba ha inaga hilmaamin maxaa naga hilmaameenin subscribe-ka maxaa kale waxaa ila soo wadaagtay gabar insha Allah party idinka iga dhigina waa qiso dhab oo dhacday waxaa jirtay gabar tiri waxaan ku wada nooleen aniga iyo waalidkayga iyo walaalaheeda dalka Kenya muddo ilaa iyo 7 sano waxaan joognay dalka Kenya totally anaga waxaan ahayn 4 oo waxa ila dhalatay 3 kaleente oo 2 biil iyo hal gabar ah oo aniga gabar ah kuna waxaan ahayn 2 gabdhood iyo 2 biil ah waxaan joognay muddo 7 sano ah kadib hooyo ayaa dhimatay Allah u naxariiste hooyo markay dhimatay waan ka soo tagnay dalka Kenya oo aabo wuxuu joogay baadiyaha dalka Soomaaliya marka inaga waxaan ahayn saddexda ila dhalatay aniga waxaan ahayn kuwa ku nool dalka Kenya oo aabo hooyo marka ay dhimatay waxaana soo kaxeeyay wiil adeer noogu aadanaa oo markaas inala joogay oo waxaan ina loo soo waday dalka Soomaaliya markii aan imaanay hooyo ay dhimatay aabo wuu ka soo tagay hooyo aabo way kala tageen markay kala tageen anaga dalka Kenya noo waday kadib markii uu hooyo ay dhimatay anaga dalka Soomaaliya nala keenay aaba ka imaaday dhanka iyo baadiyaha laakiin aaba baadiyaha wuxuu ku lahaa beero guryo iyo xaas kaleente iyo caruur kale kadib inaga waxbaar nala joogay markii cidiisa kale u baahatay kadib aabuu inaga tagay oo waxaana loogu wareejiyay eedaday aabahay la dhalatay muddo 3 sano markay ka soo wareegtay dhimashada hooyada 10 jir ayaa noqday gabar markaas soo hana qaadayso kadib hadda waxay meeshan ka bilaaban doonaa xiliyadii murugadeyda oo waxaa la igu daray wiil eedo ee dhashay oo markaas eedo da'deeda 3aad ahaa aaba igu meheriyay oo aabo waxa uu u balan qaaday eedaday in ay siin doonto lacag waxa uu doono iyadana gabadhan lagu soo wareejin doono mid kale oo ila dhalatay aniga gabadha ahayd iyadana wiil la baxsatay arintaas markay maqashay oo waxay istiri waad ku soo xigtaa adigona meel ka bax labada wiil ila dhasheen iyadana say u joogeen way isfahmi waayeen eedaday kadib way ka tageen oo kaliya aniga bas la joogay oo anigana meel aan u kalo aadama aanan haysanin aan iyada ahayn kadib aanan heli jirin ugu dambeyn maxaa dhici doona intaasi ayaan part 1 inoogu soo ekaan doona haduu eebaweyne inoo ogolaado midka meerina qaybteeni koowaad inta midka mid gacan ku kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo amaano Allah ha inaga hilmaamin shareta commentiga subscribe-ka inta wixii inoo yihiin dhiirigelin insha Allah assalaamu calaykum asxaabteyda waa idin jeclahay bye bye